saraakiisha ciidanka sida gaarka ah oo tababaran ee danab iyo taliyaha ciidanka kumaandoosta gorgor maantay meel fagaara kula hadlayay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ciidanka kula dardaarmay inay sii dardargeliyaan hawlgallada ka dhanka khawaarijta al-shabaab oo iminka si xawliya kaga socda maamul goboleedyada Jubbaland Koonfur Galbeed iyo Galmudug saraakiishan ayaa ciidanka u sheegay inuu bilowdo wajiga labaad ka dhanka khawaarijta al-shabaab waxaana tilmaameen in maalmaha soo socda la qaadi doono dagaal jirda gooyaha la doonayo in lagu dhardhaaro tuulooyin kooban oo kooxda khawaarijta al-shabaab ay kaga dhumalaysato maamul goboleedyada Jubbaland Koonfur Galbeed iyo Galmudug tan ayaana qayb ka ah diyaargarowga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ugu jiraan in la wareegaan guud ahaanba ammaanka dalka kadib markii dabayaaqada sanadkan ay guud ahaanba dalka Soomaaliyeed ay faaruujiyaan ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee midowga Afrika ee ADMIS haatan loo yaqaano si kastaba dawladda federaalka Soomaaliyeed ee maamul goboleedyada dalka ayaa maalmihii la soo dhaafay diyaargalay xoogan u galay dagaalka kama dambaysta ee la galaan kooxda al-shabaab